mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka Soomaaliya. Wariyayna Cabdicasiis Riyaali ayaa warbixinta warkan Muqdisho ka soo diray. Shir jaraa'id uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa waxa uu kaga hadlay arrimaha waxbarashada gaar ahaan xilliga si toos ay u bilaabanayaan imtixaanada shahaadiga dugsiga sare ee dowladda Soomaaliya. waxaana sidoo kale soo hadal qaaday tirada imtixaankaasi u fariisan doonta sida uu qaba sharciga waxbarashada dalka sanad dugsiyeed walba dhamaadkiisa waa in arday kasta waxbarashadiisa la qiimeeyaa la diiwaan geliyaa la kaydiyaa lana ogeysiyaa natiijada imtixaanka sida daraadeed arday kasta oo dhameysta dugsiga sare waxaa waajib ku ah inuu u fariisto imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxay ku jirtaa diyaar garow aad u weyn oo lagu doonayo kamira dhalinta howlaha imtixaanka sidii aan hore u shaacinay bishan Maajo ee aan ku jirna 19keeda 2018 waxaa dhammaan ardayda dhameysanaysa waxbarashada dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2017 iyo 2018 ay u fariisan doonaan imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ee waxbarashada heerkeeda labaad waa imtixaanka dugsiga sare sanad dugsiyeedkan imtixaanka waxaa u fariisan doona 72600 oo arday waxaana loo gali doonaa in ka badan 120 xarumood oo ka tirsan 4 maamul goboleed oo kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo gobolka Banaadir. wasiirka wasaaradda waxbarashada sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha fatahaadaha deegaanada ay Soomaaliya ka dhaceen iskuulaadka ku yaala iyo qaabka ay imtixaanadooda wajihi doonaan. waxaa iyadana xusid mudan in fatahaada webiga Shabeelle dartiis uu dib u dhacay 1400 oo arday oo sanadkan imtixaanka gali lahayd kuna gali lahayd magaalada Beledweyne waxaan ardayda u ballan qaadaynaa inuusan dib u dhacani saameyn ku yeelan doonin natiijadooda iyo deeqii waxbarasho ee ay heli lahaayeen iyadoo marka ay xaaladdu caadi ku soo laabatana ay imtixaankooda gali doonaan waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan rag iyo dumar gaar ahaan waalidiinta inay ka qayb qaataan habsami u socodka iyo fududeynta hawshan qaran waxaan sidoo kale ugu baaqayaa ardayda galaysa imtixaanka inay la shaqeeyaan oo ay u dhaganuglaadaan ilaalada iyo kormeerayaasha imtixaanka iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee ku howlan ilaalinta amniga iyo goobaha amniga iyo sugidda goobaha lagu galay imtixaanka sanadkan waa sanadkii ugu horeeyay ee imtixaan qaran lagu diyaariyo dalka gudihiisa muddo 27 sanadood ah taasina waa guul weyn oo soo hoyatay imtixaanka dejintiisa daabacaadiisa kaydintiisa iyo xifdintiisaba waxay ka dhacday dalka gudihiisa sidoo kale kharashka ku baxay imtixaanka waa markii ugu horeysay ee 27 sanadood gudahood laga bixiyay budgetka dawladda waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo taabagalka ka dhigay howlaha imtixaanka shahaadiga ee qaranka kuwaasoo ay ugu horeeyaan shaqaalaha wasaaradda bahwadaagta waxbarashada iyo ciidamada qalabka sida waxaan ugu baaqay ardayda galaysa imtixaanka inay naftooda iyo aqoontooda ku kalsoonaadaan. Cabdicasiis Abdullaahi Maxamed, Cabdicasiis Somali Cable, magaalada Muqdisho.